odayaashani oo muuqday kuwa si weyn u taageersan madaxweynaha maamulka Jubbaland ee waqtigiisu dhamaaday Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madowe ayaa gaashaan ku daruuray warqadii dhawaan ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya la xiriirtay arrimaha doorashooyinka Jubbaland waxaana warqadaasi si weyn looga digay Jubbaland in qaabka ay wax u socdaan doorasho ay ku qabato haddii sida doorasho ay ku dhacdana aysan aqoonsan doonin dowladda federaalka Soomaaliya wax kasta doorashadaasi ka soo baxa waxa garadkan ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya dhibaato iyo qas ay ka wado deegaanada maamulka Jubbaland waxa ay sheegeen in Jubbaland 45 kilomitir oo isku weer oo nabadgelyo ah ay haysato isla markaana sina dowladda federaalka Soomaaliya dhibaato xooggan ay ku qabto xarunta caasimada dalka Muqdisho waxa ay odayaashani dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyeen duulaan ay sheegeen inay hore ugu qaadeen maamulada koonfur galbeed Soomaaliya galmudug iyagoo dhamaantooda burburiyay sida maranta sinaatan ay doonayaan in duulaanka la mid ay ku qaadaan Kismaayo waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay burburinayso xasiloonida iyo nabadgelyada ka jirta Jubbaland isla maranta sina aysan dagaal kula jirin al-shabaab heshiisna la tahay in haatan doonayso inay dagaal adag ay la gasho maamulka Jubbaland mar haddii Jubbaland ay dastuur leedahay sharciyad ay ku dhisan tahay dawlad soo jirtay ay tahay oo xilli doorashada ay ku jirto waxa muhiim ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waa dawlad federaal ah anaga federaalkan ka mid nahay inay ixtiraamto dastuurka iyo nidaamka u yaala sharciyada u taala Jubbaland oo dadkeeda ay sameysteen inay ku ixtiraamto wixii qayb ay ku leedahay oo dastuurka uga ogolaanayna looba diiday wax dheeri ahna cid hadda ka yeelayso ma jirto laakiin waxaan dareemaynaa dawladda dhexe inay qas halkan ka wado dhibaatada ayada nabadda hadda ma taqaanaa ciidamada Jubbaland meesha gaareen waa nabad gashan inta ilaa iyo maartay Baarsan Guuni intana ma taqaanaa meesha hadda aan sheega 45 kilomitir jirto intaas amaan waxa ilaahay loo xamdiyo waad baabiiseen Soomaaliya caasimadii Soomaaliya waad baabiiseen waxaad Soomaaliya caasimadii kolkaas u gasheen waxaad u soo gudubteen koonfur galbeed baad u soo gudubteen oo dawladda yaad u soo gudubteen waad baabiiseen madaxweynaheedii baad qabateen oo erideen waad baabiiseen koonfur galbeed waad baabiiseen heerka ay maanta marayso wayna ogna dadkeedii oo dhan baad la kaseen waad xasuuqdeen waxaad u soo gudubteen galmudug yaad u gudubteen waad baabiiseen madaxweynaheedii baad erideen oo ka erideen waad baabiiseen nag baad ka dhigteen way baabaaday dalka Soomaaliya wax yar oo qarax mooyeen nabad buu ahaan jiray waad baabiiseen Soomaaliya waad baabiiseen nabad waxaad moodaa inaad la diriraysaan nabadda Soomaaliya inaad la diriraysaan baad moodaa waxaad moodaa inaad la shaqaynaysaan al-shabaab hadalka odayaasha ayaa imaanaya xilli dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya war ka soo saartay arrimaha doorashooyinka maamulka Jubbaland waxaana magaalada Kismaayo haatan ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee la xiriirta doorashooyinka madaxtinimada maamulkaas